war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxtooyada Somaliland ayaa lagu sheegay in fadhigii 15aad ee Golaha Wasiirada lagaga hadlay arrimo dhowr ah arrimahaasi oo ay madaxtooyadu ku sheegtay inay ahaayeen kuwa muhiim ah arrimaha lagaga hadlay kalfadhiga Golaha Wasiirada ayaa waxaa ka mid ahaa xaaladda cudurka coronavirus heerka waxbarashada dalka khatarta ka dhalan karta ayaxa dalka ku soo fool leh iyo xaaladda shaqada iyo shaqaalaha dawladda fadhigan Golaha Wasiirada Somaliland maanta ayaa waxaa shir gudoominayay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyadoo uu ku helinayay ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda oo fadhigan goobjoog ka ahaa ayaa dhinaciisa ka warbixiyay xaaladda shaqada iyo shaqaalaha dawladda warbixintaas kadibna waxa uu goluhu ku dheeraaday baa lagu yiri war-saxaafadeedka madaxtooyada ka soo baxay dardargelinta ku dhaqanka sharciga shaqada iyo shaqo qorista iyo sidii shaqo abuur loo samayn lahaa war-saxaafadeedka ayaa waxa lagu yiri madaxweynuhu waxa uu guddi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland uu u saaray inay ka soo talo bixiyaan sidii xal waara loogu heli lahaa guud ahaan dhibaatada ka jirta shaqada iyo shaqaalaha dawladda iyo sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa muwaadiniinta Somaliland xubnaha guddida uu madaxweynuhu magacaabay ee uu madaxweyne ku-xigeenkuna gudoomiyaha u yahay ayaa waxaa ka mid ah wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda arrimaha gudaha waxbarashada iyo horumarinta sayniska diinta iyo awqaafta tamarta iyo macdanta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga cadaaladda iyo horumarinta maaliyadda war-saxaafadeedka madaxtooyada ayaa sidoo kale waxa lagu yiri waxa golaha warbixin ka siiyay xaaladda cudurka coronavirus wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland oo xusay baa lagu yiri war-saxaafadeedka in ilaa iyo hadda dalku ka nabad qabo oo aan cidna lagu arag astaamaha xanuunkaasi lagu garto wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland ayaa ka waramay heerka waxbarashada ee dalka iyo sidii deegaanada baadiyaha ah ee magaalooyinka ka durugsan loo gaarsiin lahaa waxbarashada dhinaca kale wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ayaa ka warbixiyay baa la yiri khatarta ka dhalan karta ayaxa dalka ku soo fool leh sida lagu xusay warbixinaha hay'adaha ayaxa ku shaqada leh isagoo wasiirku baa lagu yiri war-saxaafadeedka tilmaamay inay u sii diyaar garoobeen